ninka maanta isagoo doonaya dalka inuu hoggaamiyo taagan dawladnimada ma aaminsani madaxweynaha ma aqoonsani xaqu markaa ku soo socdo gobolkaad ka soo jeeday iyo deegaankaad ka soo jeeday aan waxba loo qaban maxay kula tahay in deegaanka la amaanto wararka social media maraya waxaan ku muxuu ahaa been abuurkaana inuu qarankeena nimadiina wariye kala xishootaan oo adigu tan oo kale weydiisaaba gefa ninka maanta isbarbar dhigaya Muuse Bixi Cabdiye Siyaad Barre ay isugu mid ka yihiin ee gabiilay iyo garbahaar inuu siman yihiin waxaan u arkaa inaanu nin dalka iyo dadka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka xishooday inaanu hayn waxa dhinacayga fadhiya Abwaan Cabdullaahi Xaaji oo kamid ah abwaanada reer Soomaaliland abwaane ugu horeyn telefishinka Horyaal ku soo dhawow bal xaaladda guud ee dalka nooga waran in xaaladda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay nabadgelyo tahay oo xasiloon yahay marka laga reebo kala fikir duwanaansho yar oo siyaasadeed oo weligeedba dhaqan inoo ahayd oo ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama way ka jiraan nidaamka xisbiyada badan ee nidaamka dimuqraadiga mar walba ra'yiga iyo kala duwanaanshaha afkaartu ay Soomaaliland u ahayd saldhig iyo tay ku jirtay soo calaamaashay waxa dheeraad ku runtii oo qof kasta oo muwaadina oo dalkan iyo geediyadii kala duwanaa ee soo maray ka warhayay warwar weyn runtii waxaan ku lahayd wax laga xumaada ahayd dhawaaqii ugu dambeeyay ee ka soo yeeray asxaabta mucaaradka labada xisbi mucaarad wadani iyo cid runtii dhawaaqaasi waxa mid raggaasoo rag odayaalaho talada wadankana raggii hungurinayay kamid ahaa aan laga filayn ka soo yeero oo ahaa dawladda ma aqoonsanin marka waqtigaa la gaadho aad bay runtii arrintaasi ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastoo ay joogtaba warwariya dareen ba u lahayd dadkuna uga xumaadeen aniguna ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan dareenka la qabaa waxaan leeyahay labada urur hogaaminaya madaxtinimadu maalin walba waa qori isu dhiibo cid baa joogta mucaaradaduna waxay leedahay masiiraya marna ay marto arrintaa inay raaligelin degdeg runtii ka bixiyaan waxa aan u sheegayaa Khadar Xuseen Cabdi oo nin dhalinyaro ah gabiilay malaa warba ugu laabanay ninka maanta isbarbar dhigaya Muuse Bixi Cabdiye Siyaad Barre ay isugu mid ka yihiin ee gabiilay iyo garbahaar inuu siman yihiin waxaan u arkaa inaanu nin dalka iyo dadka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka xishooday inaanu hayn inaanu ogeyn dhibkii dadkani soo maray gabiilay war ugu laabayna waan u sheegayaayo gabiilay waa xaruntii aasaaska halganka xariistii janna Allah ka waraabiye dan Maxamed Cali Faarax Maxamed Cali Jaahid Maxamed Cali bayskiisii aasaaska halganka duriye ayaa ahayd gobolka gabiilay iyo dadka degani hadii aanay waxaan ku aanu Cabdiraxmaan halka gogosha dhigteena waxa hubaala inaan halgankeennii dib u xoreynta qaran ee aanu galayna aanu guul keeneen isla markaana aynaan nabadgelyada wanaagga aynu maanta haysano horumarka haysano aynaan gaadhneen mar labaad baan xisbiga mucaaradka ee wadani iyo asxaabta mucaaradkaaba runtii ugu baaqayaa inay raaligelin ka bixiyaan waxaan ku muxuu ahaa hadalladaas oo ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan si u taabtay waanan ku rajo weynahay runtii inay waxaan ku arrinta apology ka bixiyaan Khadar waxaan leeyahay maalmihii xusnaa ee xusuusaha lahaa kulli nin dhalinyaro baa tahay ee waxa Maxinius lahaa dhulba waxa la kiihee u dhintay u dhaartay dhulba waxa la ruuxii dhimashada ku aamina dhulba waxa la ruuxii dhisayay la jecel yahay aniguna dhulkaygow waxaan dhaxanta jiilaal dhudhubada areeriga dheeda saaran buuraha inta aan dhadhaabtiyo dhagaxa u dugsanaya waa guulad dhalisa la waan hortay dhiban buuryadon dhammaystiran Axmed Siiniyaas Ilaahay kuma simin dalkiisii xoroobay oo guuleystay laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin Khadar waxaan leeyahay waan ka tacsideynaya ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland meel ay joogtaba in madaxweyne Mujaahid Muuse Bixi Cabdi Xildiid
iyo siyaad barre kuu siman yihiin waxaan ummadda jamhuuriyadda somalilan ka tacsidaynayaa in xarumihii aasaaska dowladnimada iyo halganka ee gabiiley iyo garbahaarina kuu siman yihiin waan ka tacsidaynaya ummadda runtii waanan kaaga han weynaa intaa adiga iyo waxaan ku xisbigaagana labadaa dhawaaqee kala dambeeyey dowladnimada ma aaminsanin oo madaxweynaha ma aqoonsanin iyo garbahaar iyo siyaad barre ummadda jamhuuriyadda somalilan waxay ku kuxiyeen saxal xorle aad baan uga xumaa mudane abwaan siyaasi qabyatir oo isku deegaantiin dhowaan waxa uu sheegay in si xun loola dhaqmay cabdiraxmaan tuur adiga arrintaasi sidee bay kula muuqataa cabdiraxmaan axmed cali waa la xumeeyey waxaan leeyahay cabdiraxmaan axmed cali maxamed ibraahin aadanow haddaan dib ugu noqdo shirweynihii lixaad ee sanam taariikhdiisa iyo xogtiisa waxaa guddoomiye ka ahaa madaxweynaha maanta muuse biixi cabdi oo inuun haddii cadaaladi jirto qiimihiisa iyo shakhsiyaddiisa iyo hoggaamintiisa lagu garanayo haddii aan muuse biixi cabdi noqonin guddoomiyihii shirguddoonka shirweynaha lixaad ee sanam xaqiiqatan way adkaan layd basta cabdiraxmaan axmed cali uu saaxadda siyaasadda u soo geli lahaa laakiin dhexdhexaadnibuu u hoggaamiyey si dhexdhexaada transparenty ayuu u hoggaamiyey codadka maxamed xaasi cilmiye kale helan cabdiraxmaan axmed cali ayaa kuu caddaynaya saaxiibbadii snm ama saaxiibbadii gruubkii muuse biixi ka tirsanaa gruubbaa la kala ahaay madee timbaa la kala ahaay waxay muuse biixi ka codsan inuu beririf bixiyo dibadda loo baxo si codadka laysu gaadho oo waxay ogaadeen in waxaan kuuhi tira yaroo codada laga horreeyo oo cabdiraxmaan axmed cali horreeyo muuse biixi cabdi wuxuu yidhi cod baan gelinayaa beririf loo bixi maayo taariikh buu ku leeyahay bogaadin buu ku leeyahay midhkii muuse biixi ka uu yahayna cabdiraxmaan axmed cali ayaa sheegay oo yidhi muuse biixigii layga sheekayn jiray fideoga daawada taariikhda iyo muuse biixigaan sirkan ku arkaya laba kala duwan wey markaa kuwa sida dhinaca qaldan ka soo taagan waxaan leeyahay inta uu cabdiraxmaan axmed cali yidhi ayaa ku filan shirweynihii markii laga soo baxay rabbi guushii snm siiyena xeerkii snm wuxuu qorayay in snm 2 sano talada waddanka hayso ka bacdina waxaan ku muxuu ahaa taladii waddanka ay waxaan ku dadweynaha ku celiso labadii sano markay dhamaadana shirweynahaas halkan waxaan ka salaamayaa waxaan u ducaynayaa cabdiraxmaan axmed cali oo aan leeyahay ilaahay u naxariisto waxaa kaloo halkan ka salaamaya mujaahid xasan ciise jaamac madaxweyne ku-xigeenkii u horreeyey somalilan oo isaguna shirweynaha lagu doortay hadalka abwaan shalay ka soo yeedhay cabdiqaadir iimaan ee u dhignaa in xisbiyada mucaaradka ee somalilan ay dhabbadii ay ku baaba'ayeen ay hadda saareen arrintaasi adiga sidee bay kula muuqata marka waxaan ku idhi xisbigu halkaa intuu boodo isagoo doonaya qarankan nafaa badani ku maqan yihiin qarankan boqolaalka coreed ku maqan yihiin qarankan duruufaha adag soo maray doonaya inuu madaxu noqdo waxaan ku idhi wixii soo dhacay muddaxileedkaa 5 sane madaxweyne muuse biixi leeyin wuu dhammaaday ay ogaayeen mucaaradihii la kulmayey iyo jabhadihii iyo wixii dhacaya ay xoogyaal u ahaayeen ninka qaranka maalin kastoo mowqifku qaadanayaba aan mowqif u hiilinaya aan soo ag joogsanayn ninka maanta isagoo doonaya dalka inuu hogaamiyo taagan dowladnimada ma aaminsani madaxweynaha ma aqoonsani xagu markaa ku soo socdaa wayaan isweydiinta ugu weyn meesha taallaa marka in ay waxaan ku idhi istaba qabtaan oo si aanay saaxadda siyaasadda uga bixin iyagaa gantaal isku dhuftay ay dib isugu noqdaan baa muhiima qarankana xaal ka siiyaan hadalladaa ka soo yidhi si aanay saaxadda uga bixin deegaankaad ka soo jeeda miyaan la odhan karan imika xukuumadda u sacabatumaya waxaan ku idhi deegaankaan ka soo jeedo han siyaasadeedna way leeyihiin waxaan ku idhi dowladda jamhuuriyadda somalilan hadba waxaan ku idhi siday u shaqaynaysana si fiican bay dareenkeeda ula socdaan waxaan ku idhi madaxweynuhu maanta wuxuu mudan yahay in la bogaadiyo in la garab joogsado in waxa wanaagsan ee uu qabtay lagu taageero iyo in waxaan ku idhi loogu hiiliyo intaba marka uu taagan yahay halgankii in door ka soo qaatay aad garanayso qiimihiisii halganka aad garanayso dib u dhiskii dib u heshiisyadii kaalintuu ka qaatay aad garanayso marka nin waxaan ku idhi muxuu ahaa 2000 ay inoogu horreysay umiinka idhaahdo dowladnimo ma jirto ee uu luqaddaa ku hadlo miyaanay u muuqanaynin waxaan ku idhi in waxaan ku idhi ummadda jamhuuriyadda somaliland meelay joogtaba inay madaxweynaha garab joogsatay u hiilaysaa miyaanay daw ahayn maxaa deegaan baad ka sheegaysaa waxaan kuu sheegayaa qof kastoo muwaadin oo somaliland oo dalkan xaaladdu soo maray garanaya way damaqday gabiiley waa garbahaarey iyo muuse biixi waa siyaad barre aad qof kastoo muwaadina maaha dadka deegaankaa deganun qof kastoo muwaadina baa waxay xusuusisay war ninka labadaas barbar dhigaya ee muuse biixina siyaad barre u qoran yahay gabiileyna garbahaarey u qoran tahay muxuu soo wadaa baa la isweydiinayaa marka waxaan leeyahay xisbiga jiritaankiisay ku xidhan tahay in hadallada
iyo qaranku ma jiro iyo madaxweynaha ma aqoonsan xisbiyadaas inay sii jiraan bay ku xidhantay in raaligelin labada ka bixiyaan abwan waxaad ka soo jeedaa magaalada Balligubadle ee gobolka Hawd ee waa la arkay sawirada baraha bulshada lala wadaagay in madaxtooyada Balligubadle ay yihiin meel ay xayawaan ku galaan oo aan dhisnayn gabinayna wad arkaysa in fooq dheer laga taagay gobolkaad ka soo jeeday iyo deegaankaad ka soo jeeday aan waxba loo qaban maxay kula tahay in deegaanka la amaanto adeer waxaan ku muxuu ahaa meel bisada galaan iyo meel diga ku xaroodaan oo gobolka Hawd xaruntiisa ma jirto wararka social media maraya waxaan ku muxuu ahaa been abuurkaana inuu qarankeena nimadiina wariyay kala xishootaan oo adigu tan oo kale weydiisaaba gefa waxaan ku muxuu ahaa waxaan ku sida Gibiile iyo Hawd haade waa waxaan ku muxuu ahaa laba gobol oo isku nafa oo isku nolol oo wax badan iyo taariikh badan wadaaga waxaan ku muxuu ahaa oo wax badan waxaan ku muxuu ahaa kamidaysan wax qabadkuna waxaan ku waynu israaciyo waxaan ku adigoo wariyay abaan ku xayno bal waxaan soo seexan doonaa waxaan ku muxuu ahaa xarunta waxaan ku madaxtooyada waxaan ku Hawdo balka bisidu ku xariisanaa ay tusi doonaa